لكن قاضيgu hadda uu u baahan yahay sheekh kasta ha ahaado shariif kasta ha ahaado caadil kasta ha ahaado wadadii sharciyeed inuu maro waa laga maarmaan wadadaas daahirka inuu dhowrto waa laga maarmaan ragaas ragaadku waxay goosan kartaan aad u ma ahayn baad la taskiyay ilaahay uu taskiyay nabi maxamed uu taskiyay sallallahu alayhi wa sallam ninka 10 mawjid nabigu asagoo nool yiri fil janna sa'idun fil janna ragaasi waa rag noocaas ah ahayn oo wada cudalada ah marka caalim kasta uu yahay caabid kasta uu yahay aaqil kasta uu yahay shariif kasta sheekh kasta uu yahay inaad adigu fiirsato masalada oo inta badan culimadu ay afwaada u soo qaadan jireen oo ay oran jireen baad markaas labadii Ismaaciil ba isku qabatay Yaman Ismaaciil ibn Mughri kan iska lahaa irshaadka iska lahaa faqiihi wada weynaa oo qaadi aha iyo Ismaaciil Jabarti oo asaguna bada wadaad way markaas asaguna ahaa caabid ah ya waxa la yiri mid tuuga ka soo qaatay way markaas Ismaaciil sackiisu Jabarti buu soo dhac Ismaaciil ibn Mughrina waa qaadigi Saciib bada markaas kolku yimid baad markaas ninka mudacigi waa Ismaaciil Jabarti way markaas wuxuu yiri ninkani waa tuug sacan ana iska laan wiiga soo dhacay هي مركه maxay ahayd albayinatu ala almudda'i wal yamin ala man ankara soma makhraati keenbu Ismaaciil ibn Mughri Ismaaciil Jabarti nin weyn oo la yaqaano baad markaas la waxaynayo makhraatigi baan ka rabaa ilaahi ba makhraati yahabu sa'a makhraati yahabu wa karaamaadki awliyada aan sheegayno kale Soomaaliya miyuu yiri wali markaas waxay yiraahdeen saciiba yiri Ismaaciil ibn Mughri baa waxa Ismaaciil Jabarti meeshan hadda uga jeedo markaas wuxuu yiri Ismaaciil Mughri meeshan ka rabaa waxaan muddaca bihi ba makhraati galaan meel la kuma arag diinta sac kasta ha hadlo wax kasta ha la sameeyo ila loo hadi kartaa waa kii nabigu ba subhanallahi baqaratu kallama hadiiki saxaynka subhanallahi baqaratun takallamat kulkii la nabigu kaleey salaam wuxuu yiri anigu waan rumayn iyo Abu Bakar iyo Umar anigu waan rumayn oo Soomaalida soo kan mahayn hashi sheega la baxday oo waqtiga dhow hadadan gaaladu ay kuwan Ingiriiska u geela waa waxaynay sootiyaasha wad marka banaan aan kan joogan ma wax si fogba ma aha wad markaas waxyaalahaas oo kale dadka barkii wad aad bay u fogeystaan maxaa la fogeysan shaqadan waa mugta waxana waa kharqul caado inay dadku hadlaan oo una geelu hadin oo ladu ayna hadin oo waraabu hadin caadada Ilaahay ba ku dureersatay sunnada Ilaahay way asaga awoodda Allah umbaale hadana kanu ka hadlin kara kanu aamusin kara shaqadana xagga Allah ma ka socotaa waa awood xagga Allah wax bani aadam shaqul ku leeyahayba ma marka meelaad inkiri kartaa ma meelaad inkiri kartaa hada wax la fogeystaba ma aha baad iyo wax bani aadam baad marka aad u sii waxayso ma aha wadaadkan waxa shaka hadlinay iyo saacatoonay Allah way waxa ka hadlinay marka qudrada Ilaahay ma waxaad ka bushida male qudrada Ilaahay waxaad ka bushida male baad qaarba waxooga kolkii baad yar ay arkaan meel Soomaaliyeed waxooga wadaad ay waxun karaam ka muuqday oranayaan ruuxaan buu wataa war hadii waaba ka sida diinta naga sii fogeyne ilaa waxa la rabaa shay kharquuca hada aragto Allah iska awood inuu nusbeeyay inaad bal jin iyo jaan aad u nusbeeyso sida gaaladii ilaan gaalada waag hor u nusbeyn jirtay wax noocaas looma baahna baad markaas ruux iska caadi ah oo iska yaanihi baad maquuna tii la oran jiray oo Ilaahay rabbiyo markaas oo hada iska aan ahayn babaada marka ruux weyn oo ama yaanihi cibaado badan lagu yaqiinay ama mehe lagu yaqiinay baa cilmi qum lagu yaqiinay aan ahayn oo iska caamayo iska caadi ah yaaba Ilaahay kulku maanta Ilaahay baad isla waqtigiiba Ilaahay baad wax siinaya ama wax ka bedelaya oo wax degdeg la arki maquuna la yiraahdo marka wax la sii fogeysta ma tiiba marka wuxuu yiri kulku ujeedadan ka rabo ninka qaadiga Ilaahay muxuu yiri Marwan xadiidkan inta sheegtay kadib makhraati kala kaama warrabo inuu moogtahay bayina kale marka inaad adigu daahirka aad marna wax kasta duu dhacaan ka weecanayn karaama kasta aad aragto kharqul caado kasta aad aragto inaad daahirka sharciga ka weecanayn markaas wuxuu mudda'a bihi baad marka yaa makhraati gala sharciga meel kuma arag bas tiibu ku dhigay kolkii dambe Ilaahay waxa Allah ku saliday kolku way ma halka arka kii tuugahaba wuxuu yiri qiro yiri Allah saaca intuu naxay saaca asaga iska leh waxa iska leh baad marka Ismaaciil Jabarti meesha lagu kala badbaadaan marka daahirka shariicada inaad ka leexato way darfata aynin lama rabo waa inaad daahirka una ku dhaganaataa